dhammaan guddiga ka kooban qaybaha kala duwan ee wasiirada la taliyaasha sare xafiisyada kala duwan ee dawladda iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ah ka kooban waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa hawsha adag ee laydin idmaday ood ku jirtaan oo runtii guddigan uu yahay guddi muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed oo laga sugayo talo weyn oo dhaxalgal ah oo waqtiga iyo xaaladda dalka uu joogo ku aadan inaad shaqaynayseen waqti ku habboonaa aad ku howlgasheen aad baa ugu mahadsantihiin inagu maantay waxaan ka soo bilownay sida wasiirka dastuurka wasiir saalax uu ku warbixiyey haddaba uu xusay safar shaqo oo gaaban baan dibadda ugu maqnayn waxaan ka soo bilownay socodkayga iyo salaanteeda waxaan ugu talagalnay inaan sii salaamno idinku dhiirigelino hawshiina maadaama aan nahay anagu Galmudug oo gobashii guddiga aan ka soo baxay dhigtay haddana gobashii Somalia ay u taalo caasimadda Galmudug waxaan leenahay hawshiina hore u wata gobashii Somalia waa diyaar dhawaana waxaan sugaynaa insha Allah inaad timaadaan oo goobtii iyo gobashii aad timaadaan waadin ku tahniyadeenayna runtii waadin ku hambalyeynayna hawshiina wanaagsan